يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، هذه أي أمهات سيهين علماء هذا الكوه الرئيسي شيخ محمد إدريس حفظه الله تعالى. رنتي لقد أفاد وأجاد هذه بؤونا أشيي وحبضا ومعلومات نووي النسيي، جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه. وحن وحير كتلمامي دون هدي لهيدا هذو منزل ذا إيوه heerka culimadu ay ka joogta bulshada iyo qiimaha ay culimadu dadka ugu fadhiyaan iyo diinta islaamka. waxaynu ogaanaa ayuha alikhwa maqaasida shariicadeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo alkuliyaat alkhamsa ama aldaruuriyaat alkhamsa, waxyaabaha daruuriga ah ee aasaaska ah ee shanta ah, culimada qaarkoodna ay lixda ku magacaabaan iyo diinteennu dadka u xifdiday. lixdaa shay ee diintu dadka ay u xifdiday waxaa ugu weyn oo kowka diinta. waxaa ka mid a waxyaabaha daruuriyaadka ama kuliyaadka khamsada ah ee nafta bini aadanka, ee nafta macsuumada ah bay diintu dhowrtay. waxaa la dhowray qofka cirdigiisa ayaa la dhowray, nasabkiisa, nasabka qofkaa la ilaaliyey, maalkii qofkay shareecadu dhowrtay, caqligii bay dadku ay shareecadu ilaalisay, cirdigii iyo karaamadii qofkay shareecadu ilaalisay. masaa-ishaas waa masaa-ishu ay culimmadu kitaabo badan ka qoreen ee loo yaqaano alkuliyaat aw daruuriyaat alkhams. waxaana kow ka ah oo ugu horeysa xifdinta diinta iyo shareecada. ilaahay baana kafaalo qaaday subxaanahu wa tacaala xifdinta diintiisa oo yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun. ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta markuu xifdinhayo ee uu ilaalinhayo sabab wuxuu uga dhigay qadiiman wa xadiidan, wakhtiyadii hore iyo haddaba, waxataa yarita allahu alarda waman calayha, wuxuu ilaahay sabab uga dhigay oo diinta uu ku xifdiyey dad culimo ah oo ajillo ah oo rabbaaniyiina baa diinta lagu dhowray. waa kuwa diinta ina soo gaadhsiiyey salafan can khalaf, salafan can khalaf, kuwa diinta ina soo gaadhsiiyey weeye. culimadaas waa kuwa alimaamu axmed raxmatullaahi calayhi uu ku tilmaamay kitaabkiisii alraddu cala aljahmiya muqadamadiisa hore markuu kaga hadlayey. uu ku bilaabay alxamdu lilaahi aladii jacala fi kuli zamani fatratin min alrusul baqaaya min ahli alcilm yadcuuna man dalla ila alhuda yasiruuna binuuri illahi ahla alcum fakam min qatiilin liibliisa qad axyowh wakam min daalin taa'ihin hadowh fama axsana aharahum cala annaas wa aqbaxa ahara annaasi calayhim. runtii waa hadal cajiiba oo alimaamu axmed raxmatullaahi calayhi dowrka culimada ay bulshada ku dhex leeyihiin iyo qiimaha ay leeyihiin uu ku tilmaamayo. wuxuu leeyahay imaamu axmed, ilaahay baa mahadla subxaanahu wa tacaala zaman kasta oo rusushu ay kala go'do ummadda u soo saara oo soo reeba dad ahlulcilmi ah oo dadka qof kasta oo luma hanuunka ugu yeedhaya, kuna samraya oo ku adkaysanhaya dhibaatada soo gaadhaysa. dadka ayay ku nooleeyaan oy ka waraabiyaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala. nuurka ilaahayna dadka indhaha bay tusaan oo indhaha ugu fiiqaan. badanaa buu yidhi imaamu axmed raxmatullaahi calayhi dad fara badan oo ibliis dhaawacay ama ibliis dilay oo ay soo nooleeyeen oy ka badbaadiyeen ibliis, ilaahay iyaga sabab uga dhigay. badanaa dad fara badan oo lumay oo ilaahay sababtooda ku soo hanuuniyey. wuxuu leeyahay imaamu axmed raxmatullaahi calayhi alla qiimo badana oo wanaagsana raadka ay ugu fadhiyaan iyo qiimaha ay mujtamaca ugu fadhiyaan culimmadu, iyo maxaa ka xun oo ka dhib badan reactionka ama dhibaatada ay dadku culimmada iyaga ku hayaan. yacni waa wax aada u kala fog culimmadu waxa ay dadka u wadaan iyo dhibka ay dadku culimada ku hayaan buu leeyahay imaam axmed raxmatullaahi calayh. waxaa ku tusinaya dowrka culimada iyo raggii diintan xifdiyey inay yihiin raxmatullaahi calayhim cabdullaahi ibnulmubaarak raximahullah almuxadith almujaahid alcaalim alwaric ayaa waxaa lagu yidhi
أحاديثا ضعيف كفرها بدن حديث النبي لو صدر عليه الصلاة والسلام أثر كاسي ونيجا مغذي هذا الرسالة دي دكتورك مركو شيخ وبيجيشك الركروي وحلقوا لي عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أحاديثا فرها بدن بين أبورك حديث النبي لو سيد حداي حال كذا سنك يلا مركز وحكوا جوا عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يعيش لها الجهابذة ركرميضة أو أضج أو علماء أيأون البود أو كسر صار وكشاندين هي وفعلا وين سمين إنتاس أو كن أو حديث أو بين أبورة والنبي قال بين أبورة هي عليه الصلاة والسلام رجع كسر شاندي كلا هذه كسر صار كلا سفيي دينتي أو نظيفة بنانك إنه صار دقي وحي هاي نرجع علماء هاي جهابي ذاها إخواني في الله علماء مركا نوع سوكلا يدك أهل العلم جا وحا إن جل جدبون وحوي إن لو وين يقول احترامه وأنا مبدأ شرعي مبدأ الشرعية أو رقم كي السلف كي أخلاق ذي ضدك وأنا سنة أنكر حليوي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث أبي موسى بسند حسن عليه النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط إلهي وينين تيس ربي أولا وينيه وحا وينين إلهي كمذا إن لا احترام أولا حرميه ذي الشيبة المسلم قف دين تكوع الرئيستي قف مسلم أو دين تكوع الرئيستي إن لا شرفه لما موسو لا حرميه وحي كمنتهي حرمة إلهي سبحانه وتعالى إيه وينين إلهي وحاكلو كمذا وينين إلهي وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه قف قرآن حنبارسن شرعي حنبارسن شرعي أن كديرينين وأن كدحبحين كان قابنين وحاكلو كمذا قف كصدحات وإكرام ذي السلطان المقصد قف مضحة وعدالة دتك كوه قامنها يا إن لا احترامنا وحي كمتهي إلهي سبحانه وتعالى أول وينيه بكمته marka weynaynta dadka ahlul cilmiga iyo maamuusidoodu iyo ixtiraamkoodu waa tacdiimun lillahi caza wajal waayo qofkan caalimka ah sheekhi ama qof walbaaba inta qiimihiisu uu yahay waxa weeye shayga uu xambaarsan yahay qiimihiisu intuu yahay weey qofka qiimihiisu waxa weeye waxa uu sitay oo xambaarsan yahay qiimihiisu hadba intuu yahay culimadaynu ka hadlaynaa waa culamaa shariica weey culamaa shariica ayaynu ka hadlaynaa وحليه طاووس بن كيسان رحمة الله عليه تابعي جليل كها من السنة توقير العلماء سنة ذي سلف كي لقد حلي طريقة ذي ضدك وناكسنا لقى سوى قال وحا كمذا علماء والله احترامه ولا وينيه قضب كلابات ولا ليال علماء والله شرفه ولا وينيه والله احترامه حق هذا لمريه وحا كجرته بدبادة أمضة بدبادة أمضة أيها كجرته علماء أو خدك لقى ساره xurmadooda meel lagaga dhaco lagu xadgudbo la laayo la aflagaadeeyo meel lagaga dhaco lagu tunto karaamadooda dhulka lala simo taana waxa ku jirta waa baabi'intii diinta islaamka weey baabi'intii diinta weey sababtoo markaad culimadii baabi'in haysid aflagaadeynayso waxaad ku aflagaadeynaysid ku maagaysa waa wuxuu xambaarsan yahay weey marka waa baabi'intii diinta weey sida ku sugan fi saxiixayn min xadiisi Abdullah ibn Amr ibn al-Aas nabiga alayhi salatu wassalam وحكول يا حديث كذا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى علمك كما صار ضدك قلوب توضي الله توضي إلهي كما صاره إلهي سبحانه وتعالى علمك كما قبضوضه إن وكسر ضدك اللاب توضع علمك لقى ساره لكن علمك وحى لقو ترترى أو لقو بابئيا إن علماء بابعضه أو علماء ذي اللوايو أي علمك لقوايا إلى أي دعض مركز ضمبه إن ضدكو أي سميستان مركز علماء ذي اللماذان اللوايو ضد مضحة أو إيقو مفتيين إيضاد أهل العلم إيا علماء أي سقدقى أو دوبك علماء غاتا أو مركز إيقي سؤال ويديو أو أي ضدك جوابان أو فتوضان الله فهذا يقول من ضدكنا علميان بالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يا وحلق وري أثر أوليه عليكم بالعلم قبل أن يقبض علمك هلا برت إنتان علمك ماشى كبحن وقبضه ذهاب أهله
علمي إنه ماشي كبحوا بابا أنا وإن دتك سيل وايو ودتك سعيد رمضان بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حسن البصري رحمه الله تعالى تابعي جليل كها أيوة حلقة شيء إنه يدي العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. قفك عالم كيه وحبت بلوكيتيا أما اللبنة أما نجح ميل كاجا أودن أو فرين كاهيا أيوة كتل مامي حسن البصري رحمه الله تعالى إنك عالم كا هدي عالم كي ماشي أو كبح ماشي وحكو أودية أو باسكي كوب وحين هي ما شرت أيولي. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى تابعي جليل كها أياسنا وحلقة شيء إنه يدي وحل ويدي ما علامة هلاك الناس dadka inay halaagsameen oo umadu baabaaday oo dadkaasi ay dabar go'een maxaa lagu gartaa markaas wuxuu yiri idaa halaka fuqahaahum dadkooda wax garadkii culimadoodu markay baabaan ay dhamaadaan marka waxay calaamad u tahay oo lagu garanayo ummadaas umar dabar go'day oo baabaaday inay tahay waxa soo guurinaya afarkaas al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala fi al-faqih wal-mutafaqih qodobka kale walaalayaal ee culimada miisaanka iyo sharafta ay leedahay in tusinayo waxa weeye dadka ahlul cilmiga وددك إلهي أمر خاتك قشدي أمر خاتك قشدي شيء لجم ركع شيء أجوينا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى وحينو شيء إنه استجوا قرية أو أمرك يهي وحدانية إلهي بينو شيء سبحانه وتعالى وحكى الله إنه شيء وحدانية إلهي يكلني إلهي وحقيرة يا ملائكة dadka lagu lamaanayay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inoo sheegay waxdaaniyada Rabbi inay qirayaan waa ulul ilm marka Ilaahay baa maragashaday dadka ahlul ilmiga wuxuuna u maragashaday wax laga marakaca wixii ugu weynaa oo ah tawxiid wuxuu leeyahay Imam al-Qurtubi rahimahullah fi tafsir hadhihi al-aya fa fi hadhihi al-aya dalilun ala fadl al-ilm wa sharaf al-ulama aayadan waxa ku sugan oo laga fahmaya fadliga ilmigu uu leeyahay iyo sharafta culimadu ay leedahay iyo fadligooda فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه وباسم الملائكة هدو تيري لها قف علماء كقيمة بدن أو كون أكثر مجتمع هدو كل حجره مقع إلهي يا مقع ملائكة مرك الله شيء أيا لقو حريرين الله لكن إلهي مرك الله شيء ملائكتين الله شيء وحال لقو حريري وحال لقو حريري ذاتك أهل العلم تاسي وحي إنه هذا الأولى وحاله شيخ ناصر سعد عبد الرحمن بن ناصر سعد رحمة الله عليه تفسير كيسا علماء قيمها iyo miisaanka ay umada ku dhaxleeday waxa ina tusinay walaalayaal waa dadka Ilaahay uu ina faray markaynu wax garan weyno ee xaajadu inaga murugto ee cilmigu inaga istaago ee masalada kala saari weyno inaan iyaga ula noqono oo wax weydiino taasi waxay ku tusinaysaa qiimaha ay mujtamaca ugu fadhiyaan Ilaahay umadiisa meel cidla ah ama wax wanaagsan jirin u diri mahay meeshu Ilaahay dadka u diray ee uu yiri waxa la weydiiyo waa meel qaaliyo ميل قيمة وين كفر إذا وي وميل علوس وي وفعل عليه سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واحد ويديسان ذاتك أهل الذكر جاه علماء هديدا نذنكم وحجرنين حدان وحجرن وينه ومسألة إن جفر يسطه وجهل إنه جوي ماده وأقندر إنه هيسو ما شاء الله ربنا وحكى حقيقة سنه وحارنت يحلاشي أي نوكل عديان وحكى ويدينه ذاتك علماء هوي بنص هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قضبك كلا وحوي ولا ليال كنتسينها يا علماء قيمها أي كفريان نبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المامي علماء إنيهين ضدك أنبياء الحلي ضدك أنبياء الحليوي وحين وكسونا هي أنبياء إلهي سيد النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام حولا لقد أحلى متشرين سيدا إنك داري يا قري يا بابور يا هنتل يا دكان الله إنه قد أحلى أنبياء حولا لقد أحلى متشرين waxaa laga dhaxli jiray wax ka qaalisan waxaa laga dhaxli jiray ambiyada wixii adduunkan lagu hagi lahaa ee bulshada iyo bini aadanka lagu badbaadin lahaa dadkaas waxa weeye dadka ambiyada dhaxlay ee cilmigooda qaaday waa dadka culimada ah wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa al ulama warathatu al anbiya culimadu waa kuwa ambiyada dhaxlay culimadu waa kuwa ambiyada dhaxlay wa inna al anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinar أنبياء ضدك مينا دحشينين أما دحال كلا وجمينا تجين أون كأهين علم يعني الشلن دولار يا ذهب يا درهم يا دينار يا الدنيا ضدك أنبياء وجمينا دمانين وحي أي ضدك أنبياء وجتجين وحوها وعلم يا دين وي
diintii marka noocaas ahay dadka ambiyada ka dhaxlay ee soo xambaaray ee soo qaaday culimadii wey walidaalika culimadu waa dadka magaca ilaahay iyo magacii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ku saxiixaya wey waa dadka rusushii ilaahay wakiilka ka awey waa dadka magacoodii wax ku saxiixaya ee booskoodii ummadda u jooga ee matalaya wey walidaalika baa alimaam ibnulqayim raxmatullaahi calayhi kitaabkiisii iclaamu lmuwaqiciin wuxuu magac uga dhigay iclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin in la ogeysiiyo kuwii rabbulcaalamiin wax ka saxiixayay ee magaca ilaahay wax ku saxiixaya waa culimada qaabkay arrintaa u saxiixi lahaayeen wax u fulin lahaayeen u fatwoon lahaayeen ayuu kitaabkaa ka qoray marka culimadu waa dad magacii ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ku saxiixaya wey magacii nabiga calayhi salaatu wasalaam bay wax ku saxiixayaan waayo iyagaa booska waxay u joogaan nebi dambe soo baxayaa ma jiro booskii ee rusushu dadka ay u matalaysay iyo waxay dadka u sheegi lahayn iyagaa la rabaa inay u caddeeyaan oo u faa'iideeyaan u faa'iideeyaan waxa weeye walaalayaal culimadu qiimaha ay leedahay waxaa ina tusinhayaa bini aadanku markuu dhinto qofku markuu hanti ka taga hantidiisi waa la qaybsadaa markuu wax kale ka dhinto wixii waa lagu kala tagaa waa la qaataa inta badanna magaciisi iyo raadkiisii halkaasuu ku dhammaadaa oo ku go'aa laakiin ninka caalimkiihi magaciisu isagoo dhintay buu halkaa kasii jiraa oo uu sii joogaa raadkiisii baa sii hadha cidhibtiisii dambe ayaa la manaafacaadsan cilmigiisii baa dadka sii anfici khayr iyo wanaag fara badan buu bulshadii uga tegi qofka caalimkii isagoo dhintay buu haddana nool yahay sida nebigu sala allahu calayh wasalam xadiidkii uu ku tilmaamayo idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ilaa min halaath qofka bini aadankii haddii uu dhinto camalkiisu wuu go-ayaa marka laga reeba 3 qodob waxaa ka mid ahaa cilmun yuntafacu bih qofku hadduu ka taga cilmi lagu intifaaco waxa weeye cilmigaasu ilaahay dadka ku anfacaya oo uu ku badbaadinhayaa raadkiisii baana sii jiraya taasaana la manafacaadsanayaa qofkii isagoo dhintay buu haddana si kale u nool yahay waa tii u lahaa raximahu llahu tacaala qasiidadii u lahaa abu isxaaq alberi raximahullah markuu la dardaarmayey watufqadu in jahilta wa anta baaqin watuujadu in calimta waqad fuqidta wuxuu leeyahay waa lagu waayayaa haddaad jaahil tahay adigoo adduunka joogaa lagu waayayaa oo wax magacaaga sheegi iyo wax ku yaqaana iyo wax aad tahay yacni midna aynan jirin mar haddaad jaahil tahay watuujadu in calimta waqad fuqidta haddaad caalim noqoto ood wax baratana adigoo lagu waaye oo dhintay ayaad sii joogaysaayoo magacaagii iyo cimrigaagii cilmiga yani magacaagii iyo cilmigaagii ilaahay sii barakeenhayaayo raad wanaagsan kaa hadhaya waad arkayseen sheekhi caawa raximahu llahu tacaala raxmatan waasica caawo dhan la inooga sheekeynayay iyo khidmadii uu dacwadan u soo adeegay iyo dowrkii uu ku lahaa isagii iyo culimo badan oo ka horreysayba ee dowrkii ay ku lahaayeen fidinta dacwada islaamka culimmadu walaalayaal qiimaha ay inoogu fadhiyaan iyo miisaankooda waxaa tilmaamay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegay qur-aanka in culimmadu ay ka mid yihiin labada qole ee la yidhi warkooda ha la qaato oo ha laga dambeeya mid ka mid inay yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum alla ateeca rasuulkiisana ateeca dadka talada idin hayana ateeca buu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala mufasiriintu waxay ku fasireen aayaddaas wa uli lamri minkum dadka talada idin haya waa laba qolo sida sheikhulislam ibn taymiya raxmatullahi caleyhi wagayruhu min ahli lcilm ay sheegayaan oo aayadda ay ku fasirayaan ulul amarku waa laba qolo waa alculamaau walumaraa waa dadka culimada iyo madaxda dadka ulul amarka ee la yidhi iyagana ateeca waa labadaa qolo weeye wanaagga iyo khayrka in lagu ateeco oo lagaga dambeeyo qaabka loogu ateecayana waxa weeye culimmadu xaqii inay bayaamiyaan oo xaqii ay sharxaan oo caqiidadii dadka u saxaan oo dadkii tawjiihiyaan xaaraantii iyo xalaashii u kala caddeeyaan wixii ilaahay yidhi iyo rasuulkiisu yidhi calayhi salaatu wasalaam ay bayaamiyaan taasaa culimmadu waajibkoodu yahay waana waajibka saaran culimmada waana dacwada ay xambaarsan yihiin iyo risaaladooda iyo massajka ay gudbinhayaan weeye ragga umarada ah iyo madaxdana culimmadu xaqii ay caddeeyeen baa la rabaa dadka inay ku hagaan o ay ku dhaqmaan sidaa darteed baa ulil amarka waxaa soo gelaya labadaa qolo culimmadiina way caddaynaysaa oo way sharxaysaa madaxdii iyo dadkii suldada iyo talada dadka iyo siyaasadda u hagayeyna wixii la caddeeyey iyo xaqii bay dadka ku hagayaan marka wa ulil amri minkum labadaa qolo ayaa soo gelaysa wuxuu leeyahay alxaafid ibnu kathiir raxmat ullahi calayhi aayadda tafsiirkeeda waadaahiru wallahu aclam sida aayadda ka muuqata ilaahay baa oge annahaa caamatun fii kulli uli lamri min alculamaa'i walumaraa waxay caam ku tahay aayaddu
dadka ulul amarka oo dhan ee dadka talada u haya waayo kuwana siyaasadii bay dadka u hagayaan kuwana diintii bay dadka u hagayaan taas uu ku fasiraya ibn kathiir raxmatullaahi calayh qodobka kale walaalayaal ee ku tusinaya culimadu qiimaha ay leedahay waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiid saxiixa wuxuu ku tilmaamayaa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari laylata albadri cala saa'iri alkawaakib qofka caalimka ah ee ilaahay uu cilmi sharciya baray sida uu uga fadli badan yahay qofka aan cilmi lahayn laakiin ilaahay caabuda waa sida dayaxa oo habeen 14 jooga uu uga iftiin badan yahay xidigaha intooda kale xadiid sugan wey dayaxa oo habeen 14 jooga sida uu uga ilays iyo iftiin badan yahay xidigaha intooda kale iyo qofka ilaahay cilmi sharciya siiyeyna uga fadli badan yahay qofka aan cilmi la barin laakiin ilaahay caabudayay qofkii ilaahay caabudayay ee wanaagsanaa haddii caalimkii iyo isagii inta ay isu jiraan qof muslima oo xogaa iska caasiya oon ilaahay sidii la rabay u caabudaynin oon caabidba ahayn iyo qofkii caalimkaa marka intee bay isu jiraan yani waa la raba inaad isweydiiso ood ku baraarugto haddiiba la yidhi qofkii ilaahay caabudayay iyo caalimkiisi intaasay isu jiraan oo waxay la mid yihiin dayaxoo 14 jooga iyo xidiguhu siday isku yihiin qofkii caalimka ahaa iyo qof aan caabidba ahayn intee bay isu jiraan aad bay u kala fog yihiin aad iyo aad bay u kala fog yihiin waxayna tusinaya walaalayaal culimadu qiimaha ay leedahay iyo wanaagooda xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam uu lahaa laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yaأtiya amru llahi wahum calaa dalik xadiidka waxaa lagu fasiray sida cabdullahi ibn mubaarak caliy ibn madini alimaam albukhaari wagayruhum ay leeyihiin daa'ifa almansuura inay dadka culimada ay yihiin daa'ifada ilaahay u hiilinhaya alla u gargaaraya waa culimada alimaam axmedna raxmatullahi caleyhi wuxuu ku fasiray inay yihiin dadka culimada ee muxadisiinta ah inay yihiin arrintaa waxaa aad u faahfaahiyey dowrka culimada iyo qiimahooda iyo sharafta ay leeyihiin sheikhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi caleyhi risaaladiisii ahayd rafcu lmalaam can ila'immati alaclaam risaalo uu u bixiyey ayuu aad uga hadlay aad iyo aad buu uga hadlay hadday walaalayaal arrintu sidaas tahay oo culimada la'aantoodu ay ummadda ku tahay geeri culimada la'aantoodu ay tahay baaba culimadu ay yihiin dadkii alla subxaanahu wa tacaala uu diintan u doortay culimadu ay yihiin dadkii alla uu ummadda iyo ajiyaasha iyo adduunka in badan oo kamida uu ku badbaadinhayey haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab iyaga uga dhigay inay albaab u noqdaan sharta hortaagan inay noqdaan miftaaxul khayr dadkii yani khayrka miftaaxa u ahaa ee furayey yani mowqifka inaga inagala gudboon iyo xaqa inagu leeyihiin muxuu yahay xaqa inagu leeyihiin waxa weeye in la ixtiraamo oo la weyneeyo inaan xurmayno in aan qadarino inaan maamuusno inaan sharaftooda garanno bal u fiirsa xadiidka nabiga walaalayaal calayhi salaatu wasalaam cinda axmed walxaakim bisanadin xasan min xadiidi cubaadata bni saamit wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam laysa mina man lam yujilla kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqah wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam annaga nagama tirsana nagana mid ma aha qofka iyaga weyn aan ixtiraamin waa arrin aad iyo aad inooga maqan dadka waaweyn in la qadariyo rag iyo dumarba oo la xushmeeyo qofka kaa weyn ee da' ku dheer ee muslimkiihi adoon dhalanin baa laga yaabaa ilahay inuu caabudi jiray oo ilahay ku xidhnaa adoon dhalanin baa laga yaabaa adoo yar oon mas-uuliyad iyo waajibaadba dareensanayn buu inuu dareensanaa ayaa dhici karta marka waxaa la rabaa in lagu baraarugo dadka da'da qof walba oo kaa weyn inaad ixtiraamto ood xushmayso dadka yaryar waa in arrintaa walaalayaal aynu isku tarbiyeyno weeye dadka yaryar in lagu baraarujiyo arrintaa lagu tarbiyoobo weeye waxa weeye qof walbana sida uu u dhaqma aljazaau min jinsi alcamal inta dadka maanta waaweyn aad ixtiraamto ee ixtiraam aynu u muujinno ayaa markaad adigu weynaatana ixtiraamkaagu heerka unbuu gaadhi doona wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam nagama tirsana qofka iyaga weynkaan ixtiraamin qofkaan weynaynin een qadarinin wayarxam sagiirana ka iyaga yarna aanu naxariisanin wayacrif licaalimina xaqah qofka caalimka iyaga ee sheekha ee ahlulcilmiga ana xaqu leeyahay aan garanin marka waa arrin muhiimaddeedala wey walaalayaal in lagu baraarugo haddiiba nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka caalimka xaqiisa aan garanin iyo wuxuu mudan yahay aan ku baraarugin annaga nagama tirsana hadduu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam yani walaalayaal arrintu halkee bay joogtaa arrin aad iyo aad u culus weeye waa arrin isweydiin la weeye waaqiceenna markaan maanta ku dabaqno marka aynu ku dabaqno yani waddankeennii
markaynu ku dabaqno caalamul islaami guud ahaan markaynu ku dabaqno meeshan aynu ku noolahay arrintaasi ma taalla yacni markaynu ku dabaqno nafteenno dhan aan dib ugu celino masaladaasi masale maanta meesha taalla ma tahay oo wixii laynaga mudnaa dadka waaweyn ay naga mudnaayeen ma marinay dadka ahlulcilmiga ah xaqoodii ma marinay aad iyo aad bay inoogu yar tahay waa laga yaabaa inay jirto laakiin sidii la rabay iyo si ku dhow midna ma aha sidii la rabay iyo si ku dhow midna ma aha waxaa la rabaa marka ikhwaan fillah in dib loo baraarugo in dib la isugu noqdo dadka ahlulcilmiga ilaahay sharfay subxaanahu wa tacaala sharafta iyo meeqaanka ay joogaan iyo waxay inaga mudan yihiin inaan garanno wuxuu leeyahay ibnu cuyeyne sufyaan ibnu cuyeyne raxmatullahi caleyh sida khatiib albaqdaadi raxmatullahi caleyh uu soo guurinhayo arfacu nnaasi cinda allahi mansilatan man kaana bayna allahi wa bayna cibaadih waxaa ilaahay agti ugu mansilo sarreeya dadka oo ugu darajo sarreeya oo addoommada ugu fiican dadka isku xidha ilahay iyo addoommadiisa dadka ilaahay addoommada ugu yeedha ee ilaahay iyo addoommadiisa isku xidhaya ee dadka khayrka ugu yeedhaya kuwaasa ilaahay agti ugu qiimo badan bulshada waxaana ugu horreeya alambiyaa waalculamaa ambiyada kow iyo rususha waxaa soo raacay booska buuxinaya haddii la waayana waa culimadii wey waajibka kale walaalayaal ina saaran waxaa weeye ee inagala gudboon in aynaan dhibin cadamu iidaa'ihim hadal xun inuuna inaga gaadhin in aan la dhibin inaan la aflagaadaynin inaan wax xun la gaadhsiinin in aan lagu xadgudbin inaan xuquuqdooda lagu tumanin inaan sharaftooda meel lagaga dhicin waajibka ina saaran waajibkaa wey maanta arrintu intaa way gudubtay soomaalidu waxay dhahdaa alamtaro soo dhaaf arrintu maanta intaa way gudubtay heer waxay maraysaa dimaadoodii iyo dhiiggoodii la bannaysto waa nooc inxiraafahoo caqiida xumo ah weeye runtii taasi waxay ka turjumaysaa oo waxyaabaha ayna tusinaysa ka mid a in fikrad dakhiil ah oo caqiida xumo ah oo khaldan oo inxiraafa inuu inagu jiro ama tarbiyo xun oo dadku ay in badan ku tarbiyoobeen ha ka timaado ama inxiraaf dadka ku yimid oo xagga caqiidada ah ha timaado sababto ah qofku waxaa laga yaabaa isagoo khayrdoona haddana khayrkii inuuna asiibin waxaan marnaba meesha soo gelaynin qof muslima oo shahaadanhayo oo wanaagsan oo wax sababa ood ku dilaysaa aynan jirin sababta shareecadu ay tidhi waxa lagu dila aynan meesha oolin inaad dhiiggiisa bannaysatahay masale halisteeda la wey waa masale keeni karta in uu qofka noocaa samaynhaya waxaa dhici karta inuu diinta kaga baxo waayo shay xaaraana bilijmaac oo culimmadu ay ku ijmaacsan yihiin inuu xaaraan yahay ayuu bannaystay waxaa laga yaabaa isagu inuu yani waxa weeye wax baadhbaadhanhayo wax raaraadsanayo laakiin waxaan leenahay waxaasoo dhan waa xujaj kulluha awhanu min bayt alcankabuut waa xujooyin aan shaqaynhaynin oon jirin oon meesha soo gelin waana shubhooyin weeye aan meesha soo geli karin oon dhig lagu bannaysan karin wey waxaan aad ula yaabay xafidahu llahu sheekh umal hadal uu lahaa muxaadaro umar jeedinayey waagii hore dhiigga muslimka waxaa lagu xifdin jiray buu yidhi si dhiigga muslimka loo xifdiyo shubhi iyo qiil baa loo raadin jiray buu yidhi waqtiyadii hore axaadiista nabigana waad ku arkaysa calayhi salaatu wasalaam ninkii yani waxa weeye macsiyadu ka dhacday ee yidhi rasuulka ilaahi tahir oo xadda iga oofi ee nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam warar maa laga yaabaa gabadha inaad dhunkatay warar maa taabatay uuna wax kale aadan gaadhsiinin si ninkaa xuduudi a uga baaqato hadalka aan la yaabay sheekhumal wuxuu ahaa xafidahullah haddana si dhiiggii loo daadiyo oo loo bannaystaa qiil iyo shubha la raadinaya waa arrin aad u kala fog wey wax aad iyo aad loola yaabo wey waxaasi walaaleel ikhwaani fillah wax dhiig ku bannaanaanhayaan ma waynu is ognahay wax waroo isku keenseegan ma jiro waynu ognahay boqolaal cajaladood oo fawda ah oo fataawa haddaama ah fatwooyin yacni wax duminhaya oon waxba dhisayn oo dadkii walaalaha kala geynhaya oon waxba soo kordhinhayn oo dalkii duminhaya oon nabad ku soo dabaalayn oo dadkii qixinhaya oon yani barakicinhaya oon waxba u ogolayn oo wax wanaaga inta badan uunan ka muuqanin intaasoo fataawo iswada daba socoto oo aan wax faa'iida iyo wax maslaxa iyo wax khayra uunan ku jirin oo kulligeen qofka isagoon 40 garanhayn oon cumdatul axkaam garanhayn oon buluuqul maraam garanhayn oo usuulu halaatha laga yaabo xataa inuunan akhrin karin oo baysigii iyo usuushii diintan hoose jaahil ka ah ayaa fataawooyinka ummaddii isku dilaya ee dadkii dhiiggooda lagu banaysanaya dhagaha loo gelinaya markaasuu ninkii laga yaabo ummadda inuu wax u hagayo ee wax u faa'iideynhayay ayaa dhiiggiisa laga bilaabaya oo la banaysanaya waxaasi shareeca maaha ikhwaani fillah arrintaa waa in laga baraarugo weeye arrintaasi arrin xaaraana weeye arrin sharciga islaamku qabana ma aha arrin diintu qabtana ma aha arrin in laga aamuso mudanna ma aha in badan bay culimmadu laga yaaba inay siyaabo badan wax u xeerinhayeen oo iska aamusnaayeen oo ama iyagoo hadlaya haddana laga yaabo inaynan arrintu heerkii la rabay aynan weli gaadhsiisnayn waxyaabaha walaalayaal dhacaya maanta waxyaaba sahlan ma aha waxyaabaha culimmada lagula beegsanhayo lagula kacayo waxyaaba sahlan ma aha waxaan arkaynaa oon dhagahayaga ku maqlaynaa oon indhahayaga ku arkaynaa
raggii yani waxa weeye maalinkii indhaha aan kala qaadnay tawxiidka nagu ababiyey ee tawxiidka noo akhriyey ee xijaabkan maanta aan arkayno aan harsanayno gabdhaha u xidhay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala sababta uga dhigay ee in kitaab ilaahay la raadiyo caqiidadii inxiraafsanayd in la saxo raggii maanta nagu ababiyey ee ku ciraystay baa maanta waxaana laga dhaadhicinaya waa munxarifiin sheekadaas sheeko soconaysa maaha arrintaasi arrin sharciyana ma aha waana arrin dulmiya weeye waana nimankii ahlul ahwaaga ahaa ee khawaarijtu madaxda u ahaayeen mabda'oodii iyo fikirkoodii wey mabda'oodii iyo fikirkoodii baa shaqaynaya oo meesha ka socda waa in marka arrintaa aad iyo aad looga baraarugo oo dadku ay ku baraarugaan wey wuxuu leeyahay cabdullahi ibni mascuud radia allahu canh wa kam min muriidin lilkhayri lam yusibhu badanaa qof khayr doona oo haddana khayrkii aan agtiisa marin khayr baan raadinaya wanaag ba iga ahayd kuu shafeeci mayso mana shaqaynayso arrin shaqaynaysa wanaag baan uga jeeday iyo khayrdoon baan ahay ninka dadka kugu diraya ee culimmada ku nacsiinhaya ee dadka kala dilaya ee masaajidda kugu diraya ee kule waxba ha ka akhrisanin ee kule waxba ha ka dhegaysanin ee dhiiggiisa kuu fatwoonhaya xaggee buu ku wada meeshuu ku wada walaalayaal waa xaggee waxa weeye waa amrun qadiimun jadiid arrintu arrin yani cusub keliya ma aha wayna horraysay arrintu hadday maanta cusub tahay taariikhdii horena waxay ku lahayd yani waxa weye raad bay ku lahayd caliy ibn abi aalib baa la dilay radia allahu tacaala canh cuثmaan ibn cafaan baa la dilay cumar ibn khadaab baa la dilay khulafaa raashiduun baa la laayay rag badan yani 3 ka mid a saxaabatu rasuulillahi rag kalaa la dilay rag noocaasa baa waxay lahayn diintii baad meel kaga dhacdeenoo in ilxukmu ilaa lilah xukunka ilaahay baa iska leh shicaarkooda iyo raggii cali dilay yani waxa weye halkudhigooda noocaasu ahaa waxaa shicaar u ahaa oo boodhkay wateen uu ahaa kitaabkii ilaahay laga cararay baan soo celinhaynaa waxa weeye xukunkana ilaahay keligii baa leh cali iyo raggii saxaabada ahaa ee ajilada ahaana kitaabkii ilahay baa diidantihin in wax lagu dhaqaylayay cali nin baa dilay cabdiraxmaan miljam la yidhaahdo markuu dilay cali radia allahu tacaala canhuna waxa weye nin dambe oo raggii khawaarijta ahay oo shaacirha cimraan bin xataan ayaa ku faanay oo u ducaynhaya oo ku ammaanaya ninkii cali dilay oo wuxuu leeyahay yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ilaa liyabluga min di lcarshi ridwaana inii la adkuruhu yowman fa axsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana ninka sidaa loo ammaanayo ee uu leeyahay wuxuu leeyahay yaa darbatan min taqiyin maa araada biha waa nabar ka dhacay oo uu geystay nin ilaahay ka baqaya oo ilaahay dartii mooye wax kalena uuna ula jeedin buu leeyahay waa nabarkii ninkii cali dilay buu sidaa ku leeyahay wuxuu ula jeeday buu leeyahay ilaa liyabluga min da lcarshi ridwaana allaha carshigale inuu ridihiisa ku helo inii la adkuruhu yowman fa axsibuhu maalin baan xusuusanhayaa markaasaa waxaan u malaynhayaa buu leeyahay oo ila tahay awfa albariyati cinda allahi miisaana addoommada ilaahay oo dhan ka ugu miisaan culusa ugu qiimaha badan inuu yahay ee ugu fiican ninka sidaa loo ammaanayo waa ninkii cali dilay weeye radia allahu tacaala canh nebiguna uu ku yidhi cali radia allahu canhu miyaadan raalli ku ahayn an takuuna bimansilati haaruuna min muusa miyaadan raalli ku ahayn booskii nebi haaruun uu nebi muuse ka joogay inaad anigana booska iga joogto walaakinahu laa nabiya bacdii hase yeeshee nebi iga dambeeyaa ma jiro waa ninkii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam la ucdiyana raaya rajulan yuxibuhu llaha warasuuluh yuxibu llaha warasuulah wa yuxibuhu llahu warasuuluh maalinkii khaybar waxaan calanka u dhiibayaa maanta muslimiinta oo calanka u qaadaya nin aliya rasuulkiisu ay jecel yihiin isaguna ilahiy rasuulkiisa jecel markaasuu cali u dhiibay nebigu radia allahu tacaala canh waa maalinkuu cumar leeyahay weligay madaxtinimo maanan tamaniyen maalinkaa ka hor anoo jecel ninka ilaahiy rasuulkiisu ay jecel yihiin isna ilaahiy rasuulkiisa jecel inaan anigu noqdo markaasuu nebigu cali u yeedhay radia allahu tacaala canhu oo calankii u dhiibay oo khaybar ilahay gacantiisa ku furay sabab uga dhigay markii uu calanka qaaday ninkaa weye ninka lagu faanayo walaalayaal la leeyahay yani waxa weeye ilaahay ridihii baa lagu gaadhaya oo lagu herayaa marka intii culimo la laayo oo dhiigooda la banaysto oo wax lagu tunto oo la batalaqsado in la yidhaahda haddana yani waxa weeye waa khayr sidana loola jeedaa waa culamaa usuu oo dhiigooda lagu banaysto waa culimo xun jihaadkii bay ka fadhiisteen kana yeeleen jihaadka aad sheegaysa laftiisa calaamatu su-aal weyn saaranta calaamatu su-aal weyn baa saaran waayo shuruud buu leeyahay isaga laftiisu shuruud buu leeyahay waxaan la yaabay hadal kaloo sheekh umar uu lahaa raximahu llahu tacaala oo uu lahaa yani marka islaantu ay kaa furan tahay ee islaantaada aad furto qaabkaad u soo ceshan lahayd iyo qaabkaad u furi lahayd culimaad u tagtaa dukaankaaga haddaad businesskiisa aad ka sakaynayso dad baad u tagtaa culimaad weydiisaa haddii aad zakadii iyo soonkii wax uga bahato culimaad weydiisaa iyo xajkii war marka jihaadka maxaad adigu fatwada jeebka ugu wadataa od adigu isugu fatwoonaysa jihaadkan maad culimada weydiisa waa hadal xaqiiqa oo dhaba wey marka waxaad sheegaysa laftiisay su-aali saaran tahay horta inuu waxaaga uu sax yahay saad sheeganayso iyo in kale laftiisaan yani waxa weeye aan ka madhayn mulaaxadaad iyo calaamad su-aalo badan
والدعوة إذا لم تؤتى عليها بينات أبناؤها أدعياء iyada lafteeda mulaxadaad badan marka ikhwaani fillah waxaan leeyahay ragga dhalinyarada oo maanta aan ognahay inay ku fidnaysan yihiin oo ku musiibaysan yihiin yani luxumul ulama hilibka culimada cunidiisa iyo xantooda iyo wax ka sheegooda war miyeydaan ogeyn hooyooyinkiina xijaabka wata iyo gabdhaha idin la dhashay xijaabka wata iyo kuwa aad qabtaan xijaabka wata ragga maanta aad maagaysaan inta 24 saac aad dhiigooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda diinta ku ciraystay ee loo soo xidhay qaarkood ee loo soo laayay ee ku soo samray ee u soo halgamay ee dadkan yani si walba oo duruufo adaga ula soo noolaa oo khariidada Soomaaliya siday ahayd ee diinta dadku heerkii ka joogeen waynu garanaynaa raggi sida u bedelay ee dacwo iyo sabir iyo adkaysi ku bedelay ee xarigi iyo dilkii u adkaystay rag horta maanta aad dhaliilayso waa raggi noocaas ah way maanta wax ka sheegaysaad maagaysaad leedahay waa culama soo sidan uu sameeyay adigana laga yaabo wax lagu aamini karo inay iska yar yihiin inaan waxba lagu aamini karo marka arrintaasi waa in dhalinyaradu ay ku baraarugaan oo aad iyo aad ay u xusuustaan oo waxa weeye hadallada sheekada ee baraaqa ee dusha ka quruxsan hoostana waxa weeye aan wax macno oo ilayhiin oo madmuuna aynan jirin waa in waxa weeye aad ka waantowdaan ikhwaani fillah waliba ragga dhalinyarada da'yarta waa in aad iyo aad arrinta looga waantoomo waa in haddii culimada la idinku diro oo masaajidda la idinku diro oo ninkii fatwoonaya ee caalimka ee rabbaaniga ha la idinku diro meesha ikhwaani fillah la idin kaxaynaya la idin wadaa waa xagge soo meel musiiba ma waa meel musiiba wey marka arrinta in laga waantoomo waa arrin muhiim wey waxaan idin xusuusinayaa hadalka ibn Casaakir rahimahullahu ta'ala uu dhihi jiray luhumul ulama masmuuma hadalka culimadu inuu yani hilibka culimadu iyo wax ka sheegoodu waa sun lagu baqtinayo sun hilibkoodu uu sumaysan yahay waa lagu baqtinaya waa lagu dhimanaya caadadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala fi hadki astaari muntaqisihi macluuma siduu ilaahay ula dhaqmi jiray culimada dadka meel kaga dhaca ee maaga ee ay ka fakan waayaan qaabku ilaahay ula dhaqmi jirayna waa qaab la yaqaan way qaar uu fadeexeeyo qaar uu ilaahay fashilo qaar uu ceebeeyo qaar khaatimo xumo ku dhinta qaar basiba u insilaaxayaan marka waa in arrinta aad iyo aad loogu baraarugo la iska jiro waxaan idin xusuusinayaa ikhwaani fillah xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb soo ma ogidin ilaahay laba qof ayuu wuxuu u cilaamiyay oo uu sheegay ilaahay subxaanahu wa ta'ala in uu dagaalkiisa ugu baaqayo oo uu dagaal ogeysiiyo waa laba qof waa qofka ribada cuna iyo qof awliyada ilaahay dhiba culimada ilaahay dadka awliyada ilaahay qofka dhiba qofka ilaahay subxaanahu wa ta'ala dagaalkiisu ogeysiiyay ha ku tala galay buu leeyahay dagaalkayga xadiidkii bukhaariga ahaa man caada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi wali aan leeyahay qofkii la collaytame ee dhiba dagaalkayga ha ku tala galo dagaalkaygan ogeysiiyay buu alla yidhi subxaanahu wa ta'ala ma ilaahay baa dagaal iskaga celin kara waan dilayaa wey waan ihaanaynhayaa waan dullaynhayaa wey يعني ولو بعد حين أما هذا لا تأما هدوات وحليها الإمام الشافعي رحمة الله عليه سيد خطيب البغدادي وسوق قورين هيو إن لم يكن الفقهاء في الآخرة أولياء الله فليس لله ولي حدينا حديث كان أرنتو تلمام أيو أولياء إلهي إلا شيء حدينا علماء أهين ويجو آخر أين أولياء إلهي أهين أولياء كل إلهي لا يهبانو قرن هيا بله حدينا فقهاء أهين أولياء إلهي كواوي وفي هذا الإمام أبو جعفر الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ولها مركب وكهذا أخلاق ذي سلف يدقن كي ونكسنا علماء هرك أي كتشوجين وحكم ذا ومتن الطحاوي ذا وكو كان يا علماء السلف وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل وحليه علماء سلفك وصحابتي iyo taabiciinti iyo kuwii ka dambeeyay dadkii khayrka iyo diintana soo gaarsiiyay ee fiqiga iyo cilmiga soo gaarsiiyay wax aan khayr ahayn lagu ma sheegi karo wax aan wanaag ahayn lagu ma sheegi karo qofkii xumaan ku sheegay afkiisa ku taagana fa huwa ala ghayri sabil wadadii toosnayd mid aan ahayn buu hayaa qof lunsan oo khaldan weey waa qof lunsan oo khaldan weey qof sawaabkii aad uga fog weey سمو أجد إخواني في الله الإمام مالك رحمة الله عليه آيدي قول الله تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آيداس مركو إلهي كسو شيكي فيجي مالك فيجي اللي هذا ومسادير تنقالوه مسلمين تأوكسو قال مستر كميدا حولها فيجي الإمام مالك رحمة الله عليه وحو فتواضي إن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم رجع عاي شري يا علماء دي رجع وحكي شيء شري ما جي شري صحابة nimankii shiicada ahaa iyo wixii la midka ahaa in aynan waxba ku lahayn fayga muslimiinta
sababna wuxuu uga dhigay markii fayga ilaahay uu ka soo sheekeeyey waxaa iskale baa la yidhi lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim muhaajiriin baa iskale kow laba waxaa iskale baa la yidhi waladiina tabawa'u daara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim waxaa iskale nimankii la dhihi jiray ansaar ee madiine ku soo dhoweeyey muxuu ahaa muhaajiriin qaybta saddexaad ee fayga iskalena waxaa weeye waladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan kuwii muhaajiriin iyo ansaar ka dambeeyey laakiin waddadoodii raacay ee u duceeya saddexdaasuu ilaahay fayga u sheegay ee yidhaahda rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilaahu annaga noo dhaaf walaalaha iyagii naga horreeyana u dhaaf marka ragga saxaabadii ammaanay weeye marka saddexdaa qolaa fayga iskale ninka marka saxaabadii iyo culimadoodii caayaya ee wax ka sheegaya fayga waxba kuma le waayo ilaahay saddexdaa qolon buu u sheegay muhaajiriin miyaa tahay maya ansaar miyaa tahay maya kuwii ammaanay ee khayrka ku raacay u duceeyey miyaa tahay maya mise kuwii wax ka sheegay haa fayga waxba kuma lid waxba lagaa siin maayo binasi hadihi alaaya aayadanaana daliil waa uu ka qaatay raxmatullah waana fiqigiisii yani camiiqa ahaa runtii alimaamu maalik raxmatullahi caleyh fiqigiisii cajiibkaha wey waxaan leenahay walaalayaal in qofku qof wanaagsan haddaad aragto qof wanaagsan oo ahlu khayra qof wax ka sheegaya oo umaagaya oo dhaliilaya oo 24 saac duraya oo naqdi cilmiya iyo qaab cilmiyeysan aan u radinhaynina aflagaado samaynhaya oo xumaantiisa iyo ceebtiisa qodqodaya oo raadinhaya si uu ceeb uun uga soo saaro oo uga helo taasi waxay ku tusinaysaa qofka caalimka ah sharaftiisa waxay ku tusinaysaa qofkan diqsiga ah ilaan diqsiga meesha xun iyo qurunka un arkee qofkan diqsiga ah in waxa weeye xumaantiisa iyo dhaliishiisa unbay ku tusinaysaa waana tii shaacirka u lahaa idaa atadka madamatii min naaqisin fahiya shahaadatu lii biannii kaamilu haddii xumaantaydu ay kaa soo gaadho nin liita oo nacasa waxaad ogaataa taasi inay ku tusinaysa anigu inaan ahay qof wanaagsan oo sharaf leh u fiirsa marka walaal markaad eegto qof caalima oo taqiinay oo sheekha qof caayaya isaga eeg suluuggiisa iyo dhaqankiisa dib ugu noqo akhlaaqiyaadkiisa dib ugu noqo tasarufaadkiisa dib ugu noqo adeega iyo serviska uu bulshada u hayo dib ugu noqo waxay kuu baxaysa oo kuu soo caddaanaysa inuu isaguna fashilan yahay qofkan caalimkiina qof ilaahay subxaanahu watacaala rabbaaniya oo wanaagsan inuu yahay waxaan ku leenahay marka kuwaas waxa aad samaynhaysaan aad culimmada u geysanaysaan ama addin ahaan aad ka gaadhsiinaysaan ama af ahaan aad ka gaadhsiinhaysaan waxaan ku leenahay يعني waxa weeye culimada waxba yeeli maysaan idinkuna ha ku baabi'ina idinku ha ku waxyeeloobina waatii uu lahaa shaacirku yaa kanaadixi sakhratin yowman liyuhinaha falam yadirha wa awha qarnahu lwaclu wuxuu la mid yahay yani waxa weeye goodir yidhi salax ama dhagax baan geeska ku dhufanaya oo geeski isaga uu ka jabay laakiin dhagaxuuna waxba noqonin waxay yidhahdeen yaa naadixa aljabali alcaali liyuhlimahu ashfiq cala alra'si laa tushfiq cala aljabali yani qofka buurta hardinaya geeska ku dhufanhayo ee u qaatay inuu buurta wax ka tarayo wargeeskaaga iyo madaxaaga u tur buurta sidaa ku jabin maysa waxna ka tari maysid 10 nin iyo 5 nin iyo 20 nin haddaad disho diintu sidaa ku dhammaan mayso culimmaduna ku dhammaan mayso rag dadka fudalada ah ee khiyaarta ee wanaagsan ee culimmada aan laayayna way kaa horreeyeen oo culimmada in la laayo salaf iyo dad wanaagsan baa waddadoodii maray culimmadana waxaan leenahay waxaasi waa wax dhici jiray weeye ha la samro ha la adkaysto dacwadana ha la fidiyo waxaana yaan loo jixin dhagna jalaq yaan loo siinin walaqad kudibat rusulu min qablik fasabaruu calaa maa kudibuu wauduu xataa ataahum nasruna walaa mubadila likalimaati illaahi walaa mubadila likalimaati walaqad jaءaka min naba'i lmursaliin ma yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablik ina rabbaka laduu makfiratin waduu ciqaabin aliim marka waxaan la samaynhayo oo dhan waa wax saalixiintii hore lagula dhaqmay wey waa mabda qadiim jadiid yani wax iska cusub oo maanta un iska bilowday ma ah waa wax la rabo dadku inay aad taariikhda iyo wixii dhici jiray ay dib u akhriyaan oo dib loogu noqdo taasaan marka walaalayaal aan dhammaanteen naftayda iyo tiinaba aan ku baraarujin lahaa oo waxyaabo badan oo caatifo ah oo iska socda oo meelay u socdaan aan la garanhayn oo qiila waqaala ah oo sal iyo raad midna aan lahayn oo yacni shubhooyin ah oo haddana axkaam lagu dulbinaynhayo oo qofka cirdigiisa lagu bannaysanhayo oo diintiisa lagu bannaysanhayo oo dhiiggiisa lagu bannaysanhayo oo sharaftiisa lagu bannaysanhayo waxaasi walaalayaal diintu beri bay ka tahay alliya rasuulkiisuna beri bay ka yihiin waana manhaj munxarifa oo khaldan weeye waa in lagu baraarugaa yani waxa weeye ama adugu dhe hebel baa loo dan leeyahay ama waan loo dan haddaad dhahda hebel baa loo dan leeyahay kaad u qaadato un baa loo dan leeyahay sababtu waxa weeye liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu